joogaa magaalada Baydhabo caqabado badan iyo culeysyo badan oo iyo jidgooyooyin badan loo suubiyay kadib waxa Ilaahay mahadiisa inaan shalay aan Baydhabo soo gaaray deegaankaanagina aan nimid waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan inta uga sheego iyo adduunka oo dhan dawladda federaalka ah inay si toos ah oo xadgudub ah oo faragelin ah ay ku samaysay dawladda Koonfur Galbeed ayna faragelin qaawan ku soo qaaday sidaas darteeda waxa aan rabaa inaan ka hadlo oo ummadda Soomaaliyeedna u ifiyo arintaas iyo waxa aan ka aaminsanahay waa mid ugu horeyso waxaan cambaaraynaynaa talaabooyinka lagu abuuraayo qalqalgelinta bulshada lagu kala qaybinayo bulshada lagu dhibaateynayo aad iyo aad baan ugu xunno oo ay dawladda federaalka ay wado ayna ugu tala gashay inay ku burburiso nidaamka federaalka iyo waliba gaar ahaan Koonfur Galbeed inay ku burburiso ay ugu tala gashay aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa roolka dawladnimadana ma ahayn wuxuu ahaa rool dawlad ayna lahayn iyo aad baan u cambaaraynaynaa dawladda Koonfur Galbeed waxay cadeynaysaa in dastuurka ku meel gaarka ah ee la ansixiyay sanadkii 2012 uu yahay mid ka sharciga ah ee ay Soomaali ku heshiisay laguna dhaqmaayo waxaan diidanahay oonan ogolayn dastuurka cusub waa mid loo dhamayn oo lagu meel marsaday habraac qaldan iyo musuqmaasuq maadaama habraac qaldan iyo musuqmaasuq lagu meel mariyay bulshada Soomaaliyeedna ay raali ka ahayn Soomaalina ayna mid u ahayn heshiisna aanan lagu ahayn dadka Soomaaliyeedna ay ku sii kala tagayaan qaybna kama nihin mana ku jirno mana aqbalayno waana ka dignay waxa ugu weyn oo dagaalada uu noogu socdana ee qayb ka tahay waxaan ka shaqeynaynay muddo 3 sano ah in dadka Soomaaliyeed aan la kala dirin dawladnimada aan la burburinin nidaamka iyo Soomaalinimada iyo midnimada la isku haayo wax heshiis lagu yahay laga wada shaqeeyo sidaas darteeda waxaan rabaa inaan inta ka sheego madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumaddiisa inaan u sheego in ay sida jidka hadda ay ku socdaan oo ummadda Soomaaliyeed intii hartay lagu irdheynayo intii la dareemahan intii kala joogtay la isugu diraayo oo la isugu baabi'inayo ay dhaxal xun tahay ay ka soo noqdaan isugu yeeraan Soomaali isugu yeeraan golihii wada tashiga qaranka meel dhexdhexaad la isugu yimaado kii maqan iyo kii joogaba lagana hadlo masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo wax heshiis lagu yahay iyo talo heshiis lagu yahay in loo yimaadaan rabnaa aanan la dhihin kii maqanna looma joojinayo kan joogana looma joojinayo aan la dhihin Soomaali intaas ma qaadi karto mana aqbali karto dawladda Soomaaliya waxay maalmihii iyo bilihii aan soo dhaafnay ku hawlanayd sidii dawladda Koonfur Galbeed ay u furfuri lahayd shacabkeedana isagu horkeeni lahayd nidaamka federaalka iyo dawladnimadana loo baabi'in lahaa dadkana loo kala irdheysiin lahaa ciidamadana loo kala qaybin lahaa ayadoo go'aansatay ciidankii dhufeyska ku jiray oo cadawga la dagaalayay oo hal meel isaga soo wada jeeday in la kala qaybiyo qaarna la yiraahdo shabaab aada qaarna la yiraahdo Koonfur Galbeed ku hara si loo abuuro loo burburiyo nidaamka federaalka si aan heshiiskii caalamiga ahaa iyo dastuurkii dawladda federaalka ay qaadatay loo banayo waxayna si toos uga baxeen howlgalkii iyo sugista amniga aan sugaynay ay qaybta ka ahaayeen si toos uga baxeen ayagoo inka kale noqday cadaawada jirto ee dawladda Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed iyo federaalka ku ah Koonfur Galbeed waxay qaadanaysaa talaabooyin Koonfur Galbeed waxay qaadaysaa talaabooyin lagu dardargelinayo sugidda amniga iyo wadajirka siyaasadeed ee bulshada deegaanka si waafaqsan dastuurka dawlad goboleedka iyo kan dawladda federaalka ah ee kii 12 ah Koonfur Galbeed waxay cambaaraynaysaa oo si weyn u cambaaraynaysaa xanibaadda duulista rayidka ah oo laga dhigtay hay'ad lagu fushado
dana siyaasadeed oo gaar ah. Shalay iyo maantana ugu dambeysay laba duulimaad laga celiyay Baydhabo loona diiday shacabkii deganaa shacabkii reer Koonfur Galbeed xanibaad toos ah lagu soo rogay la yiri ma bixi karaan warqad cadna la keenay. marka waxa muuqato inay tahay airport xamar uu isu bedelay isbaaro qof uu leeyahay oo dantiisa ka shaqeyso cid uu rabana lagu xanibo cid uu rabana la sii daayo. airport Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed u siman oo sharci looga dhoofo oo sharci looga soo dego ma aha. sidaas darteeda waxaan cambaaraynaynaa dhaqan xumadaas airport Soomaaliyeed oo Soomaaliya oo dhan iska lahayd in shakhsiyaadka dana siyaasadeed isbaaro u dhigtaan oo shacabka Soomaaliyeedna ku dhibaateeyaan ummadda Soomaaliyeedna ku dhibaateeyaan kuwii anaga naga horeeyayna lagu dhibaateeyay annagana maanta iyo shalay iyo daraad bay haysatay iyo muddadanba nagula dhibaateynayay. dawladda Koonfur Galbeed waxay aad uga xun tahay in la siyaasadeeyo dawladnimada iyo howlgallada ciidamada iyo kaalmada bini'aadanimada iyo deeqda adduunka uu bixinayo siyaasad loo isticmaalo oo la yiraaho hebel aragtidayda ma ku jiro aragti kale aaminsan yahay waxba lama siin karo in la yiraaho aad baan u cambaaraynaynaa waana ka xunnahay. adduunkana waxaan u sheegaynaa Soomaaliya waa la kala diray waa la kala qaybiyay barashar iyo rabitaan qof ayaa la rabaa in lagu haayo. waxaan rabnaa in dadka Soomaaliyeed oo ay wax siinayaan sida ay ayaga ugu tala galeen deeqdooda inay u gaarto. waxaan kaloon dawladda Koonfur Galbeed waxay ugu baaqaysaa shacabkeeda iyo ciidankeeda iyo waxgaradkeeda iyo siyaasiyiinteeda inay u diyaar garoobaan difaaca deegaanadooda difaaca dhulkooda difaaca dawladnimadooda difaaca siyaasadooda inay u diyaar garoobaan ay midoobaan gacmaha isqabsadaan maamulkooda iyo nidaamkooda iyo sharaftooda iyo digniintoodana ay ilaashadaan ayna diidaan gumaysigan guracan oo loogu talagalay in madaxa la foorariyo. dawladda Koonfur Galbeed waxay cadeynaysaa oo marqaati ka tahay in wasiiro ka soo jeedo deegaanka iyo siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanka oo xildhibaanada wasiiro ah loo adeegsanayo inay burburiyaan nidaamka federaalka ayagana ay hor ordayaan cadaawaha iyo cadawga u soo jeestay inuu Koonfur Galbeed dhibaatay ay hormuud ka yihiin. waxaan rabaa inaan uga digo oo u sheego taariikhdan hore u soo dhacday waa aragnay waa soo marnay kuwii saneeban lahaa oo ummadan in lagu soo duulo la baabi'iyay ka shaqeynay saasay u dhinteen taygoo tuugsanay kuwii ka horeeyay oo keenay qoladii SNF oo ayagana sidaasay u dhinteen ayagoo tuugsanay taariikhdaasay leedahay nin dadkiisa iyo deegaankiisa loo soo adeegsaday oo dhabarka laga soo dharbaaxay oo bax la yiri dadkaada soo burburi oo bax la yiri dadkaada isku soo dir adaa wax noqonaysid oo saas ku soo baxay oo wax noqdana weligeed lama arkin. marka waxaan uga digayaa haddii ay garasho jirto iyo hadday damiir jirto iyo hadduu aqli jiro meeshaas in kaba jirtay wax la idin xilsaaray iyo shaqada la idin diray oo dawladnimada hay'ado inaad nidaamka federaalka aan ugu matashaan ahayd baa kabteen oo fulan weyseen tii ayada ahayd qabsada. dadka hooyadiin iyo aabihiin iyo walaalihiin qaxa ku haysan ka daayay shabaabka habeen iyo maalin inta lacagta u soo direysaan oo aan la heshiiseen oo ciidamada inta wacdaan aan leeyihiin shabaab u taga oo dawladda federaalka ba ogol aan leeyihiin ka daayay. waxyaalaha mucjisada ah oo la yaabanahay waxa isdhax galay oo isku ajenda noqday federaalkii dawladdii iyo shabaabkii. waxaa marqaati ma doonto ah nin wasiir ah yaa wuxuu soo wacay ciidan jooga Qoryooley ninkii taliyaha ahaa buu wacay wuxuu ku yiri taliye mi maqashaha adinka roolkiina haray hadaa reebel tiin annaga degmo hebel isaasaan yeelnay waxa leen ka rabaa inaa hadashaan inaa tirahaan Koonfur Galbeed ma rabno lacaga idin soo direena dawladda federaalka waa idin ogtahay number la idin siinaya hadla Koonfur Galbeed shuqul kuma leeyahin dhaha kadib lacagta markaa qaadataan ciidan 300 dira Qoryooley ka dira buur ha tageen. ninkii sarkaalka waa ku celiyay wuxuu dhahay inaan hadalno in lacagna loo soo diro waa garanay laakiin say buur ku tageynaa buuri annaga iska dhaafay magaalada geeskeeda uma tagi karnay
annaga la hadlayna nimankaas ayaga idin wada ayaga idin geenayo marka waxa isku ajinta noqday dawladda federaalka ahayd iyo shabaabki waxaan ognahay baabuur iyo rasaas iyo hub dawladda ay soo dhiibtay oo shabaab la soo dhaxmariyay si u soo socday guur la keenay oo la furay oo dad maleeshiyaad la aruuriyay loo qaybinayo oo hubka dawladda ay lahayd oo maqaasiinkeeda laga soo bixiyay oo nambaraysan oo nambarka leh oo ay la soo sii ahaa waa aragnay oo naloo sheegaya oo leeyahay waxa soo dhaxmareen toos shabaab soo dhaxmareen oo taliyaalka ciidamada ay soo marinayaan soo gudbinayaan iyo wasiirada ay la hadlayaan leeyahay hal gudbiyo marka waxa cad oo aragnay ciidankii dhufayska iskula jiray oo ciidamadii koonfur galbeed ahaa in midna lala hadlo lacaga lagu soo diraa leeyahay baxgee tagaya duurka shabaab joogo waa laga hadlayaa u tag leeyahay gadaashiina xeral in kaga soo banaa gadaashooda xeral looga soo biil la dajiyay meesha lagala soo hadlo leeyahay shaqadiina qabsada waxa u baahantii waalidin keenay waxyaalaha kale ugu yaabka badan in ciidankii qoryaha la siiyay oo masaakiinta ahaa oo dad dagaalba shuqul ku lahayn ah in inta laba hoomeeye lagu soo raro baawur cabdi bilayaal la soo saaray afar mooto oo shabaab u leeyahay horkacaan marka waxa noo muuqato nacaybka loo qabo koonfur galbeed iyo nacaybka loo qabo nidaamka federaalka iyo nacaybka loo qabo aragtida qofki ka aragti duwan sida la yeelayo darteeda inay u gelisay shabaab ay u gelisay oo ay tiri ay dan ka raadiyeen si ay muhiim u noqotay in nidaamkan la burburiyo in shabaab la heshiiyo lacagna lagu bixiyo marka waxyaalaha yaabkoon adduunka u sheegayno waxa weeye waxa isku ajenda noqday dawladda federaalka iyo shabaabki oo saas u dhaxsan waan cadna waay wax qarsanna maaha wax lagu faanayo way ayagana ku faanayaan waay sidaas darteeda markaan aragnay intaas oo dhan markaan aragnay jidgooyooyinka markaan aragnay shacabka koonfur galbeed sida loo dhibaateynayo annaga totally waxaan go'aansanay dawladda koonfur galbeed laga bilaabo shalay oo horey loo sheegay maantaba inaanan dawladda federaalka xiriirka u jarnay waxa ay nagu dhaxaysa iyo waxa noogu timaadana uu dulmiyahay adduunkana waa u sheegaynaa dadka Soomaaliyeedna u sheegaynaa mana noo imaan karaan mana na arki karaan ilaa iyo waxa ay ku jiraan ay wax iska bedelaan ilaa iyo wax heshiis lagu yahay la keeno ilaa iyo wax Soomaali ay ku midaysantoon isla ogol yahay la keeno in dadkii Soomaaliyeed waraabihii saddexdii dibi laga dhigo oo leeyahay kan waa cad yahay waa nagula soo raacaya hal cuno labadii kale ay ogolaadaan kan waa guduudan yahay dhiigu og yahay haddana waa nagula soo raacaya aan cunno kan kiimadooba kaliis uu soo horo la cuno hadda meeshay maraysaa shalay waxaana la yiri dani waa tuug dawladnimo ma rabo waa cad yahay waa nagula soo raacaya hal cuno axmedooba kii guduudnaa waa hal cuno kii madooba baa nagu haray aniga waa hal cuno waay marka cunninkii baa taagan marka maalinba dib baa la cunaya bari markii haddana soo hartana waxa waaye kii madooba kii waxa haray jaalaha ahaay hal cuno oo qoor baa ku xiyo meesha waxa yaala marka waxa weeye waraaba waxa la yiraahaa laf banaantaan lan uma roono laftiisana uma roono laf banaantaan hadduu arko waa jajabina laftiisana uma roono waa baduraysaa dhiig bay ka keenaysaa tiyo kala taal qof la joogana uma roono qof maqan uma roono shacabkii Soomaaliyeedna waa la kala irdheeyay labana la isku diray qof aaminayna male meesha loo socdo iyo ujeedada waxay tahay ajendaha wuxuu yahay waxaan garan karnaa ma muddo 3 sano ah iyo waxaan u taagnay war Soomaali midnimadeeda aan ka shaqeyno war Soomaali wanaageedii dawladnimadeeda aan ka shaqeyno madaxweynuhu dadka Soomaaliyeed isugu yeer tanaasul samee waxaan macna lahayn yaan dadka loo kala tagin oday Soomaaliyeed 3 sano waxaan u samreynay u dulqaadanaynay waxay ahayd adiga kaligiina harteen dadka Soomaaliyeed oo yarka oo Soomaalinimada jecel iyay samnixin hadaa tagtaan oo la dhiin bas way Soomaali waa kala tagtay hadaa adinka joogtaan Soomaali waa joogtaa Soomaali waa isla joogtaa reer hebel baa maqan hal yira intaas u joogno meesha ugu dambeysay way waxaan ilaalinayna waxay ahayd reer hebel bas haray yaan diideen waxaan diidayna waxay ahayd dadka Soomaaliyeed oo yar oo Soomaalinimada jecel inay ka naxaan bixistaanada waxaan diidayna waxay ahayd oo la jecel kala hayn dadka Soomaaliyeed oo la raadinayo inaan noqono ee aan noqono kuwa wax raadinayo miiska loogu imaanayo inaan noqono yaan rajo kala hayn intaas
waxaan baxnaaninayna oo habeen maalin ka hadlaynayna taas ahayn 24 saacna waxaana saarnaa barashar handadaad agajugleyn toojargareyn hebel baan kugu soo sii deynaya hebelow meesha tag yaa nacab yaa cayn karo yaa dili karo yaa yeeli karo waa la bixiha waa la yeela warani guri jaarood leedahay ma ku jira nin ummad iyo qowmiyad iyo state Soomaaliya oo dhan degan tahay mas'uulka ah oo madaxweyne Soomaaliyeed oo la doortay baan ah ayadoo madaxweynaha ii timid waa la doortay waa kula shaqeeyay rabitaankaadan kula shaqeeyay 2020 iyo labadii bishii sagaalaad yaa marqaati bay leedahay madaxda dawlad goboleedyada oo dhan oo joogan NCC yaan codsadeen in doorasho aan galno lama galaayo doorashooyinka la mideynayo 2023 inta ka safray yaan waxaan tagay Dhuusamareeb madaxweynahan ugu tagay marqaati bay leedahay aniga qorqor baan ahayn 9 saaxiibinimo ku gaarin oo aan leenahay madaxweynuhu maalin walba nin aan waxba tareen oo waxna soo kordhinayn anaga toogin anaga doorashan qabsanaynaa nafasax maya nameeyo inaan nidaamka wax ka bedelaan rabnaa inaan doorashooyinka mideynaan rabnaa inaan doorasho qof iyo cod qabanaan rabnaa inaan dadka Soomaaliyeed isu keenaan rabnaa inaan hor u soconaan rabnaa 2024 haddana sidoo kale ugu tagnay waxaan niri madaxweynuhu nafasax anaga doorashadaan qabsanay ilaa intaas waxaan ku soo gaaraynay taas ahayd haddii wax wanaagsan la suubinayo waa in dadka lagu wada qanciyaa haddii wax wanaagsan la rabo waa in dadka wanaaga ayaga wada leh loo sheego leeyahay waxaan wanaagsanaa wadnaa laakiinse aniga kaligeeba wax idin og aniga kaligeeba idin fikiraayo wixii la suubiyay lama diidi karo ninka diidana waa la qabanayaa ninka diidana waa la bixinayaa ninka ka hadlana waa la ceyrinayaa ninka iswareeriyana dada loo soo diraya waxa la leeyahay soo qabo saamale mar allaaliye marka aan niraahno waxaan waa qalad waxa weeye saas yaa la isula soo kagaaya wax aad ogtahay waxaad ogeyn dastuur baa la geenayaa waxaad ka ogtahay mare cid ansixisay ma taqaanid cid keentay ma taqaanid wax ku qoran ma taqaanid cid wada tashi lagala suubiyay male kii joogayna ma oga kii joogay oo annaga ahna waxba kama ogin kan maqana waxba kama ogin ninka diidana waa corruption iyo dagaal iyo fidna waay marka waa aad baan uga xumahay in maanta aan heerkan nala soo gaarsiiyo aad baan uga xumahay wixii aan intaas ka shaqeynaynay oo ku soo dadaalayno oo ku soo dhimanaynay inay natiijadooda ay noqoto Soomaaliya ha kala tagto oo aan intaas aan u taagnayno celinayno aad baan uga xumahay runtii waxa socdo oo xamar laga wado wax Soomaali mideynay ma waxa socdo oo xamar laga wado wax dadka Soomaaliyeed si kala geeyo oo si dhibaateeyo oo si burburiyo oo caqdad hor leh si abuuro way noqonaysaa runtii waxa xamar laga wado waxay noqonaysaa wax loo yacdo iyo raas kambooni inta u dhaxayso saameeyo oo abuuro colaad sokeey magaalo kasta dadka degan la isku diro waxaan ahayn oo dawladda ka shaqeynayso malaha magaalo kasta dadka degan adinka magaaladaas yaa degan reehebel yaa xogo markuusiin ha yaa inta u joogay hebel kaale hebel oo hor reehebel kici isdila dawladda la rabo inay nabadda ka shaqeyso inay horumarka ka shaqeyso inay dimuqraadiyadda ka shaqeyso inay nidaamka federaalka ka shaqeyso inay dawladnimada ka shaqeyso la rabay nasiib wanaag cagsigeeday ka shaqeysay cagsigeeda yay ka shaqeysay ugu dambeyntii waxaan baaq u dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan kaloo baaq u dirayaa beesha caalamka si looga shaqeeyo midnimada ummadda Soomaaliyeed si loo helo wadajirka dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo adduunka aan ugu baaqayaa beesha caalamka ugu horeyso midowga Afrika IGAD dawladaha dariska iyo adduunka oo dhan inay arinta Soomaaliya maanta meesha ay marayso ee dhibaatada haysatay colaadda sokeeye ka soo laabatay aysan indhaha ka fiirsanin ay si dhab ah ay u farageliyaan ay waxna ka qabtaan dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa dulmi intaan ka badan lama fiirsan karee Soomaaliya xaq sheega oo Ilaahay ka baqa dadka xamar jooga
oo intaasoo aragtoo dhibaataa soo maray oo korkooda habeenii maalin wax lagu dulminayo dadka colaadda soo celinaya ka celiyey in maanta 3 beri airportka xamar dad lagu celiyo aad baan uga xunnahay waana cambaaraynaynaa mana ogolaanayno haddii ay xamar iyo caasimadii Soomaaliyeed ahayd garoonkii aadan cadde uu ahaa garoonkii Soomaaliyeed oo Soomaaliya oo dhan ay isla lahayd dadkii lagu cunsuriyay isbaaro loo dhiganayo nasiib darro waa kuwa aragti miihi ma baxaysid kuwa aragti miihi mishaarkan ka goosana kuwa aragti miihi askari ma ahaanaysid kuwa aragti miihi Soomaali ma tiid kuwa aragti miihi kuma arki kari waa lagu dilaa kuwa aragti miihi walaalkiis ii raadiye hadile dawladdu waxaan intaas ay kama shaqeynayso hadiiba aragtidaadaba ay ka duwanaato waxa ugu yar oo lagu suubinayo waa in wixii la haystayna laga reebto sidii lagu dhibaateyn lahaana laga shaqeeyo waa war maxay igu aragti ahaan weysa hata lagu ma dhahay laguma qancinayo laguma samirsiinayo maanta meeshii ugu dambeysay yaan taaganahay marka meel la fiirsan karana maaha Soomaali iyo beesha caalamkaba waxaan ugu baaqaynaa dulmigan iyo duulaankan qaawan oo dawladda federaalka nagu soo qaaday inay marqaati ka ahaadaan garabna nagu siiyaan nagana taageeraan midnimada Soomaaliya iyo wadajirka Soomaaliyana sidii ku soo noqon lahayd laga shaqeeyo oo loo istaago adduunkana uu nagala shaqeeyo annagu saan hore u sheegnay dawladda federaalka dhibaatadeeda joogtada ah go'aan baan ka gaari doonaa laakiin laga bilaabo wax xiriir oo naga dhaxay ma jiraan dadka mas'uuliyiinta ah oo reer koonfur galbeed ah oo dawladda federaalka ku jiro oo wanaaga jecel oo ayagana duruuf iyo tabar hayso oo warkooda la dhageysanayn waxaan u sheegaynaa haddii warkiina la diido ana og in la diiday haddii taladiina la diiday ana og in la diiday oo ina meeshan ka imid aniga haddii aag biyo ka dhamaadeen aanan ka keeni karin dawladda federaalka deegaanka aan uga keeni karin haddii nin shakhsi alla haysta aanan ka sii dayn karin ka fakin karin haddii intaasoo dhanba lagu ku sameeyey waa ku mahadsantihiin waa ognahay duruufta idin haysato adinkana meeshiina allah ku ammaansado hoos dhanba ma fiirinayno madaxaanaga ma foorarinayno furcadi iyo gobonnimo iyo geesinimo iyo dadnimo yaan ku dhimanaynaa haddaan dhimanayno laakiinse madaxaanaga ma foorarinayno waxaan wax Soomaali leedahay la isku darsaday waaye waa la isu yimid nin iskale male waa ku guumaysanaan cid laga yeelay male marka siyaasiyiintaanada wixii Soomaali ay diideen oo la diray ha ogolaanina ka dalkaada soo dumi Soomaali kale waa diiday maxaad u ogolaanaysaa marqaati baa ka hayd bax ka daba tag hebel la qabso la dhigo kala qayb ciidanka dadka systemka ku jiro la dhahay waa diiday marqaati bay leedahay ka daba tag hebel buntland ka daba tag hala kala qaybiyo ma kama daba tagayn intaan ka qaylanayna dadka naga dhibaato u marramo Jubbaland ka daba tag Axmedoobe hal ka daba tago ninka la yiraahdo Xamza u bax hadda dhaqaaq madaxweynuhu intaan meesha tago dadkii la kala qaybiyo oo in kala sartaan meesha dhibaato ka dhacdo xabad ka dhacdo ma rabi annaga marka tiibaan ogolaanay waana la ogaayna ogolaanay bax dadkiina soo kala qaybi hayay iskaan $100 soo orod wariya mi maqasha orod gal ruuxaas waxba lagu ma noqdo ilaahay baa wax idin siiyay ninkii xil rabo iyo ninkii darajo rabo deegaankiisii dadkiisu ka helaayay ha u yimaado dadkiinana yaan la isku dhibaataynin waana taariikh waa qormayso taariikh ya qormayso dadka wax garadka ah aqoonyahanka ah siyaasiyiinta ah oo reer koonfur galbeed meel walba joogan waxaan uga mahad celinayaa taageeradooda iyo garab istaagooda iyo wanaagooda dadka dawladda ku jiro ama saraakiil ha noqdeen ama madaxda ugu sareyso oo reer koonfur galbeed ah ku jirta ha noqdeen dadaalada ay suubiyeen oo ay ku dadaalayeen in maxay ahayd midnimada Soomaaliya sidaan u wadnay nagala shaqeynay ayagana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan si gooni ah ugu mahad celinayaa saraakiisha iyo ciidamada qalabka sida oo wadaniyiinta ah oo damiirkooda iyo dalkooda iyo dawladooda iyo diintooda ilaashaday oo diiday yiri anaga beec ma nihin oo diiday oo yiri anaga maxay ahayd mishaar baan ka goynayaa dalkaanagu ma baabeynayno ilaahay baa inooleeyay waxaad gooso
aad baan ugu mahadcelinaynaa cid waxaan ka goyn kartana male ayagana in ma siinin ilaahay baa idin siiyey shalay baa haysateen dowlad Soomaaliyeed ku haysateen waxay ayaga leeyihiin ma wixii Soomaali ee lahayd baa isku handadayaa ayagana aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa dadka Soomaaliyeed saasoo kale waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa shacabka reer Koonfur Galbeed taageeradooda waxaan kula dardaarmayaa dalkiina iyo dadkiina iyo dawladdiina ilaashada waxa loo socdo oo loo jeedo lafta garaan maaha waa nidaamka federaalka in la baabi'iyo waxa loo socdo oo la burburinayo waa Koonfur Galbeed iyo midnimadeeda waxa loo socdo oo loo jeedo dadka deegaankan in la gumeysto oo la dulaysto oo la dhibaateeyo haddaad ogolaataan aniga kulli nin baan ahay ma ogolaanayo aad iyo aad u mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu